xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu hakad ku jira bilaabidda howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ee looga xoreynayo guud ahaan dalka ayaa maanta waxay dowladda Soomaaliya ee ku dhawaaqday in dalalka safka hore sida dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay soo dhameystireen ciidamadii ay ugu talagaleen inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. hadalkan waxa warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Sareeye Guud Cabdullaahi Cali Caanood isagoo si faahfaahsan u sharaxay waqtiga ee dowladdu ay bilaabayso howlgalka wejigiisa labaad ee dalalka qaybta ka ah. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Kenya ay soo dirtay haatan ku sugan yihiin magaalooyinka Ceelwaaq, Hoosingo, Gariley, Doobley, Kulbiyo iyo Diif, halka ciidamada Itoobiya uu sheegay inay ku sugan yihiin Caabudwaaq, Yeed iyo Qurac Joome. Cabdullaahi Cali Caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga waxa uu intaas hadalkiisa ku daray in dowladda Soomaaliya ee haatan ay diyaarisay ciidamadii la shaqeyn lahaa ciidamada ka socda labada dowladood. waxa uuna sheegay in ciidamada Soomaaliya inay yeelan doonaan hogaaminta dagaalka. Sareeye Guud Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu sheegay in dowladdu qaadatay qorshe in howlgalladan ay qayb ka yihiin ciidamada shisheeye aan waxba dhibaato ka soo gaarin dadka shacabka iyo hantidoodaba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in wejiga koobaad ee howlgalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ciidamada xoogga dalka kaashanaya ee ciidamada dadka deegaanka ku dileen 3,000 oo al-shabaab ah laguna dhaawacay 3,700 oo kale isla markaana laga saaray degmooyin iyo deegaana badankood ay ka tirsan yihiin maamulada Galmudug. dhanka kale dowladda Soomaaliya waxay sheegtay tirada askartii ugu horeysay ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS isla markaana gabagabada bishan iskaga baxaya gudaha Soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay in wasaaraddu inay ka go'an tahay sidii ciidanka qarabka sidii ay u qaadan lahaayeen mas'uuliyadda in amniga dalka ay kala wareegaan ciidamada midowga Afrika ee ADMIS. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu xusay in ilaa iyo dhamaadka bishan aan ku guda jirnay ee June ee dalka ka baxayaan ku dhawaad 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS. taasina ay qayb ka tahay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2,628 iyo 2,670. ma jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska balse ma u weysay fursad aad ku xaadirto fasal caadi ah ama offline ah? haddaba Fahn Academy waxay ku haysaa xalkii aad kaga gudbi lahayd caqabadaas ka hortaagan barashada luqadda Ingiriiska. waxaynu si online ah waliba aad u fudud kugu bari doonaa Ingiriiska adigoo gurigaaga jooga waqti kasta iyo meel kasta aad dunida ka joogto. waxaynu idin diyaarinay manhaj dhammaystiran oo ka kooban 3 xir oo kala ah Basic English aynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah ee aasaaska ah, Speaking English aynu ugu talagalnay ardayda doonaysa inay bartaan ku hadalka luqadda Ingiriiska, iyo Grammar oo ah naxwaha luqadda Ingiriiska oo dhammaystiran. si aad u hesho warbixino dheeraad ah iyo tusaalooyin la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.